بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan su'aalo kooban aan ku weydiiyo mulkiilaha kambaniga Derium Company oo ah kambani ka shaqeeya arrimaha qaxoontiga ee wadanka Greek iyo wadamada Yuruba marka bal waxa inoo sharxi doona waxyaabaha ay qabtaan mulkiilaha Derium Company oo magaciisa la dhaho Cabdiwaaxid Axmed soo dhaw gudoomiye Een, bismillahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waan dhawey waa mahadsan tahay mudane Salebaan. Shirkadda Derium Company waa adeegaha bulshada. Waxa ay laamo badan ku leedahay wadamada Yurub. Sidoo kale waxa ay xafiisyohan muuqan ku leedahay wadamo badan oo caalamka ah oo Soomaalidu ku nooshahay. Marka walaal shirkaddeedu arrimaha Soomaalida u shaqeysaa haddii loo baahdo inaan faahfaahiyo adeegyada qabatana iyada qudheedu waa ku dari doonaa. waa mahadsantahay gudoomiye waxaan rabaa inaan si specific ku weydiiyo kambanigu macnaha muxuu qabtaa shaqooyinkiisa maxaa ka mid ah kulli hadda dee wadanka Greek baan joognaa oo xafiiskiisa ugu weyn ku yaallo marka bal adeegyada qabataan midhiya laba ama laba saddex bal wax nooga yara taaba adoo mahadsan Okay. Waa su'aal wanaagsan weeye. Shirkadda Derium Company asaaskeedu wuxuu ahaa ama ay dhalashada inay fikirtaas dhalato 2019 waxa ay dhab noqotay oo xafiisyadeedii electronic ay soo dhaafeen ama ay ooda soo dhaafeen 2024 bishii koowaad oo ugu yaraan dhowr xafiis loo dhisay. Adeegyadeedu ama shirkaddeedu adeegyada ay qabatay haddii aan dabcan inaan tiriyo gacmaha farahooda kuma tirin karayo. Waxaase ka mid ah arrimaha inaan ablayaan rabaa oo aan kadin u dhigo. Ablada ugu horeysa arrimaha sharcigan ka shaqeynaa. Waxaanu ka shaqeynaa sidii Soomaalida wadamada Yurub timi ama qaab tahriib ah ku yimaadaan naftooda la soo cararaan ama qaab kale ba ku yimaadaan sidii wadamadan ay xorriyad ugu heli lahaayeen xaq dadka degan ay u heli lahaayeen ma naga shaqeynaa. Taa macnaheedu waxa weeye qaabkii ugu horeyn sharci ku heli lahaayeen wadanka ku joogaan si ay u helaan xuquuq caafimaad mid amni mid bulsho mid caafimaad mid waxbarasho u helaan. Sidaa daraadeed arrimaha dadka ugu badan hadda wadamada yimaada dadka qaxoontiga weeye. Qaxoontigan aad wax u tarnaa waxaan u sameynaa diyaarin waxaan shirkaddeedu siisaa looyaro arrinta ka caawiya taas waa qayb weyn oo arrimaha qabna ka mid ah. Waxaana adeegyadan qabna ka mid ah in guud ahaan Soomaalida wadamada Yurub ku nool mid walba laga diyaariyo interviewada asaylamkii iyaga aan u dhaxayno aan xuquuqdooda u doodno qof kasta oo Soomaali Yurub ku nool inuu helo xaqii uu qalmay ama uu xaq u lahaa. Adeegyada kale qabna waxaa ka mid ah in maxkamadaha iyo jeelasha dhammaan Yurub aan ka shaqeyno oo dadka Soomaalida ay ku xiran mid walba uu xaqiisa helo mudan yahay kii cadaalad darro ku xiran cadaalad u raadino kii cadaalad ku xiranna aan u raadino qaabka ugu wanaagsan ee cadaaladiisa xaqii lagu lahaana uu gudan karo. Arrimaha kale ka shaqeyno waxaa ka mid ah in arrimaha bulshada Soomaalida ee wadamada ku nool aanu qayb ka nahay oo horumarinta iyo sida ay bulshada u dhexgeli lahayd iyadoo qudheedaan qayb ka nahay. Marka inahaasaan ka tilmaami karaa adeegyada shirkaddeedu qabato. waa mahadsantahay gudoomiye waan soo gabagabeynay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiina waxa weeye waxaa jira dad dalkii jooga oo dadkooda qurbaha joogaan gaar ahaan wadanka Greek marka qolyahan Greek jooga waxay rabaan inay dadkoodii soo qaadaan marka arrimaha dalkii laga soo macnaha dadka dalkii laga soo qaadayo arrimaha dacwadda aan idhaahdo haddaan si kale balaaran kugu dhigo arrimaha dacwadda maxaa idinku bal ka kambanigiinu bal qayb intee leeg bay ka tahay arrimaha dacwadda in dadka loo dacwoodo ku jirta processka saan hore u tilmaamay adeegyada qabanay way ka badan yihiin ciidaas hase ahaatee wixii ugu horreeyay ma sheegay qayb bay ka tahay jawaabta su-aashaadu adeegyada qabano waxaanu geed dheer iyo geed gacan buu fuulaa sidii dadka Soomaalida ahaan ku nool ay kelinimada uga bixi lahaayeen. Waxaa uga jeeda sidii hooyada keligeeda ka soo gashay carruurteedu heli lahayd aabaha keligeeda ka yimi xaaskiisa carruurtiisu heli lahaa wiilka ama gabadha dhalinyaradaana ay lamaanahoodu heli lahaayeen. Marka waxaan awood badan gelinaa sidii arrimaha dacwadda ay u dhici lahaayeen dadkuna qoysaskuna ay u midoobi lahaayeen oo aan ajarna ka dayno dhaqaalena ka dayno magacna ka dayno. Marka qayb weyn bay ka tahay arrimaha dacwaddu arrintan khaasatan hadda wadankan xafiiska ku yaallo ee Greek aad baan arrinta uga shaqeynaa. waxaana noo ogolaanaya qodobada ka mid ah sharciga qodobka 4696 qodobkaas ayaana siinaya farqadiisa 75 b oo si khaas iyada u tilmaamaysa dadka qaxoontiga xaq ay u leeyihiin waalidkooda ama ehelkooda ama familygooda kala midoobaan. Marka walaal arrintaas aad baan uga shaqeynaa. waa sax
su-aalaha waan soo gabagabeynaya su-aasha ugu dambeysa haddaan kusii weydiyo waxa weeye greeg waynu joognaa waynu garanay xafiiskiina ugu waaweyn baa ka aasaasan laakiin bal yurubta kale macnaha saameyntiinu intee ku leeg tahay iyada maxaad ka qabataan bal dad badan baa jiro yurubta jooga qaar sharciyadii loo diido aan haddii doonaan loo yar fiican haysan qaar rabo ku dhowdin dadkooda soo kaxaysta qaar adigu badan oo caqabado badan oo caynkaasabaa jira kuwo greeg intay sharci ka qaateen sharciga ka dhacayo haddana rabo inay dee sharcigoodii greeg mar labaad ka cusboonaysiiyaan oo weli aan sharci kala helin baa jira bal arrimaha iyaga maxaad ka qaban kartaan kamanigiina muxuu bal warbixin naga sii kooban shaqadeedu xafiisyadeeda hadda muuqda ama dhisan waxay ka dhisan yihiin greega hase ahaatee waxaan xarumaan noqon ku leenahay wadamada kale Yurub taa macnaheedu waxaa weeye waxay gacmaha iyagu gaadhaan meelo ka baxsan wadankan hadda xafiiskayga ku yaallo wadamo badan oo Yurub oo ay Soomaalidu ku nooshahay waxaan ka bilownaa hadda anagoo oo meel hoose kasoo bilaabana in dadka Soomaalida la bari taaro la caawiyo bal ugu horreyn dadkii hore u joogay sharciyada qaatay iyaga arrintooda waxaa noo dambeysay dadka Soomaalida hadda yimi sidii interviewga looga dhisi lahaa sidii waxa ay sheeganayaan loo hubin lahaa wada sharciga loo marin lahaa sidii loo caawin lahaa sidii loo fahansiin lahaa dariiqooyinka ay tahay inay maraan sidii la talin loogu samayn lahaa ayaanu aad isugu hawlaa xafiiskayguna qayb dhan ayaa qaabilsan dadkaas sidii loo diyaarin lahaa waxaan waqti badan gelinaa sidii dadka Soomaalida talo loo siin lahaa sidii aan looyarada shaqadaydu ay u gaadhi lahaayeen halkaas oo ay xiriir la samayn lahayn dowladda hadda Soomaalidaas ay ku nooshahay waxaanu warbixin badan ka diyaarinaa oo hadda weli aanu diyaarinteedii wadnaa sidii dadka Soomaalida ku nool kuwii hore dacwadaha wadana loogu dedejin lahaa kuwa hadda doonaya inay bilaabaana waddo wanaagsan loo marin lahaa waxaan wax badan weyn ka tarnay oo aan doonayay inaan ku faannaay waxa weeye arrimaha diyaarinta interviewada oo aan aad xoog badan u gelinay waxaan rabaa in aan idinahan ka sheego arrin aan sacabada lagu qarin karin oo ah dadkan wadankan Greek ka tagay wadamada tagay oo aniga qudhooda garab iyo safaarad u noqonay oo sharciyadooda u cusboonaysiinay oo wixii ay u baahdaanba anaga garab aan u nahay meelaha ay joogaanna aan anagu ugu tagno oo wax la yiraahdo wixii hadba ka cabanayaan iyo wixii ay tabanayaan iyo wixii ay dowladdan iyo wadankan uga baahan yihiin aan aad u fududayno marka dadka Soomaalida ee wadamada kale Yurub ku nool adeegyo badan baan u qabanaa oo hadda inta aan xusay ka mid yihiin haddii aan midhiya laba kale ku daro waxaan sheegi lahaa sidoo kale in wadamadaas dadku tuulooyin ay qaar ku degan yihiin aysan haysan dad xataa luqadda garanaya shaqadeedu turjuwaanadeedu waxay had iyo goor heegan ugu jiraan in wiilka ama Soomaaliga gabadha ama wiilka Soomaaliga ee jooga tuulo Magasile oo Jarmal ku taala ama tusaale magaalo dool ama legionnaire legionnaire la yiraahdo Faransiis ku taala oo cid soo gaari karta aanay jirin maalinka uu xanuusto habeenka hospitaalka la geeyo in cid oo horeysa maskaxdiisa ku soo dhici karta ay tahay annaga dabeedna anagana soo waco marka taana waan rabaa inay gana ku daro xuso aad baad u mahadsantahay gudoomiye ugu dambeyn fariinta dadka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waliba gaar ahaan Yurub fariinta ugu dambeysa u diraysaa maxay tahay fariintooda misaan u diraya waxay tahay in ay nabartaan marka koobaad adeegyada aanu qabanno fariinta aan u dirayaa waxay tahay kale in anagu garabkooda nahay in booski banaanaa ee ahaa in dowladdeenu aysan weli buuxin awooddaana aysan gaarin kuma dhaliilay dowladdeena laakiin aysan weli awood u yeelin inay buuxisay ahaa inay qof kasta oo Soomaaliya kaga warhaysa halka uu joogo shirkadayda buuxisay hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo gobol wadamada Yurub ka mid ah joogta oo aan Soomaali kale u dhaweyn cidda ay tahay lambarkeeda inay haysato waa annaga cidda ay tahay inay la soo xiriirto marka ay baahi dareento waa annaga cidda ay markay khatar dareento cidda ay tahay in la soo hadasho waa annaga annaguna awood badan baan gelin doonaa in qofkaas la caawiyo aan xidhiidh dhow la leenahay jaaliyadaha kale Soomaalida wadamada kale Yurub ku nool ilaa haddana waxaan raadinaynaa in xafiis kasta oo arrimaha noocaana ka shaqeeya inaan isku xidh u samayno annagana xiriir ay nala yeeshaan sidii adeega aan Soomaalida u qabanno intuu hadda yahay looga sii wanaajin lahaa marka fariintaan diraya waxaa weeye halkan idinkaan idin joognaa aad baad mahadsantahay gudoomiye adiga